madasha ma gudbayaasha Soomaaliya ma wadaan badbaadin iyo samata bixin qarane waa mashruuc shisheeyuhu ku adeegsanayo waana qalab lagu burburinayo qarannimada Soomaaliya warbixintan waxaan idin kula wadaagi doonaa markaasi gogasha la dhigay Kismaayo sababta uga qayb gali waayay ama u tagi waayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo su'aalo in badan aad isweydiinaysid oo aan warbixintan ku dul istaagi doono iyo sababta la yaab kale ee madaxweyne Farmaajo uu qayb uga noqon waayay mashruuca shisheeye ee lagu soo bandhigayo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland soo dhawaada dhamaantiin warbixintan iyo muuqaalkan ba fogeeyo oo shargareeya aad baad u mahadsantiin aan ku bilaabo dad badan ayaa isweydiinaya su'aal fudud balse noqotay mid aad u qoto dheer taas oo ah maxay ama sabab ayuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya uga maqan yahay gogasha la dhigayo Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee Soomaaliya miyaa loo diiday ma isaga ayaa ka baqday mise markaasi wuu go'doonsan yahay siyaasad ahaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba jawaabta dhabta ahi waa mid aad uga fog waxa ay dadku isweydiinayaan hadallada fudud ee baraha bulshada xilligan lagu faafinayo iyo dhamaanba doodaha dhinacyadu ay isweydaarsanayaan waa mid koowaad Kismaayo maxaa dhab ahaan xilligan ka soconaya aan marka hore isweydiino Kismaayo xilligan maxay tahay maantay Kismaayo ma ahan waxa yaala gogol qaran oo midaynaysa ummadda Soomaaliyeed ma ahan gogasha Kismaayo taala shir lagu dhisayo nidaam isbedel ee dalka lagu jihaynayo sidoo oo kale ma ahan halgan sharci ah iyo sidoo oo kale mid dastuuri ah Kismaayo cida tagtay waa isbahaysi ku dhisan diidmo hore looga bartay ma ahan isbahaysi ku dhisan aragti bedel ah dadka meeshaasi ku jirsanna dhamaantood mid walba waxa uu xilligan difaacaya dhibaato isaga gaar u ah mid kasta dhibaato isaga gaar u ah ayuu difaacaya mid walbana waxa uu ka cararaya xisaabtan sharci iyo sidoo oo kale mid dadweyne labadaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xilligan fahmay waxa dadka kale iska indhatirayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu horay u soo arkay sida isbahaysiyada degdega ahi aan u hana qaadin una fashilmaan aakhirka sidoo oo kalena wuxuu og yahay isbahaysi ku dhisan Xasan Sheekh Maxamuud baan nalana inuu san noqon karin mashruuc qaran oo dalkan mustaqbalkiisa u wanaagsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu og yahay hal xaqiiqo hadii aad la midowdid dad aan xal wadan ama xal qaran aan keeni karin adiguna waxaad ka noqonaysaa ama qayb ka noqonaysaa mushkiladda dalka ka taagan haddaba yaa isbahaysigan hogaaminaya maxay yihiin qorshayaasha ay wataan aan si daacad ah u eegno wajiyada dhammaan dadkan horboodaya isbahaysiga ninkan martigeliyay gogasha waa Axmed Madoobe doorasho ma uusan qaban tan iyo 2013 sharciyad la'aan ayuu ku joogaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland isagu ma samata bixin karo dalka isaguba uu sharci darro xilligan ku lug leeyahay muddo dheer uu caadaystay wajiga labaad waa Siciid Cabdullaahi Dani gudaha Puntland ayuu ku dareemayaa dildilaac iyo fashil fooda ku soo haya sharciyada xilhayntiisa xilligan waa mid muran badan dhalisay sanadkii 2024 taariikhda Puntland wuxuu isku dayayaa in uu markaasi dib u qoro sidoo oo kalena
uu halbeegii siyaasadeed ee Puntland ka takhaluso siyaasiyiinta kale qaarkood horay ayay ugu fashilmeen siyaasadda qaarkood waa kursi doon qaarna waxa ay xiriir la leeyihiin wadamo shisheeye oo qatar ku aqranimada dalkeena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaas darteed waxa uu gartay in kooxdan aysan ahayn koox halgan qaran ku dhisan balse ay tahay iska caabin kursi lumay raadinaysa iyo sidoo oo kala markaas kuwa naftooda isaga difaacaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sababta ugu weyn dhammaantood waa qalab shisheeyuhu ku adeegsado qodobkan waa mid muhiim ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligan markii uu joogay xukunka dalka wuxuu la kulmay cadaadis shisheeye xilligii uu talada dalka hayay xilligaasina waxa uu bartay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ama hogaamiyaasha dawlad goboleedyadu ay yihiin jaranjaro ama gaari gacan loo adeegsado qarannimada Soomaaliya si shisheeyuhu galdaloolooyinka Soomaaliya inta uu helo uu burburiyo dalka sidaas darteedna waxa uu doortay madaxweyne Farmaajo inuu ka fogaado meel kasta oo laga urinayo in shisheeye uu lug ku leeyahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma doonayo sideedaba sawir qaldan haddii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu taga Kismaayo ama uu tagi lahaaba waxay ummadda Soomaaliyeed iyo taageerayaashiisuba ay oran lahaayeen wuxuu la mid yahay danigii macangaga ah waxa uu la mid yahay Axmed Madoobe Kismaayo ku go'doonsanaa sidoo kalena waxa uu la mid yahay Shariif Cabdiraxmaan Cabdikuur iyo Khayre oo siyaasadda ku fashilmay laakiin madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu noqdo ikhtiyaar kale sidoo kalena hore ayuu u sheegay inuusan noqon doonin barakiciye oo noqon doono badbaadiye dhammaantoodna waxa uu doonayaa inuu noqdo xulasho ka duwan mucaaradka dibadjooga ka ah talada dalka madaxweyne Farmaajo markaasi istiraatiijiyad ayuu qaatay ma jirto sabab ama cid uu ka dalbaday in lagu casuumo ama uu imaado Kismaayo Farmaajona ma go'doonsana runtuna waxay tahay madaxweyne Farmaajo kuma degdegayo isbahaysi fashil qaran ah oo shisheeyo ku adeeganayo wuxuu sugayaa waqtiga jawiga iyo madalka nadiifsan isbahaysiyada danta gaarka ah wata siyaasadda dhabta ayna ma ahan orod neeftuur ee waa samir iyo xisaab haddaba madasha la magac baxday ma gudbayaasha Soomaaliya dhammaantoodba waxa haysta daruufo iyaga gaar u ah mid kasta taas oo uu doonayo in uu kaga cararo sharciyada iyo kala dambeynta qaybtood waa madaxweynayaal maamul goboleed waxa ayna diideen sumadii qaranka sida visa iyo sharci kasta oo dalka ah waxayna doonayaan qaybtood inay kursiga ugu sareeyo ee dalka qabtaan iyagoo oo dhammaan diiday sumadii qaranka national ID visa iyo wax kasta oo qarannimada ay doonayaan inay dalka ku hogaamiyaan ama qaranka ay doonayaan inay madaxweyne ka noqdaan ay bari dalka ku xukmi lahaayeen qaybtood waxay si rasmi ah u taageerayaan qawaarijta iyagoo amni xumo u saadaalinaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaadna marqaati ka tihiin in 3 bari ka hor Sheekh Shariif uu si cad u sheegay in Muqdisho shabaab ka buuxo waa Muqdisho oo amni heshay tan iyo maxkamadihii xilligan say amaan u noqotay aysan mar kale soo mari doonin taariikhda qaybtoodna waxay ku xadgudbeen midnimada dalka waxaadna marqaati ka tihiin in qaybtood u sacabatumayaan in dalka uu qurub u kala go'o oo sidoo kalena la cayiliyo gooni goosatada qatarta ku ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed haddaba inta aysan wax badbaadin iyagu nafahooda ha badbaadiyaan dhammaan wajiyada Kismaayo ku tagi doonana waa wajiyo iyaga ay tahay in laga badbaadiyo Soomaaliya aad baan idin salaamayaa